maxaa samayn lahayd haddii aad ku go'doonto meel cidlo ah halkaas uu qabow gaarayo -40 darajo jirkaagana uu bilaabayo inuu baraf noqdo maanta waxaynu dhex galaynaa sheekada naxdinta leh ee John Mitchell nin ay barafka dartiisa uga go'een 4 farood laakiin nasiib u helay inuu noolaado si uu adduunka uga sheekeeyo wixii ku dhacay joog la dhamaadka si aad u ogaato ninkan sida uu badbaaday hana ilaawin inaad nagu soo biirto like-na saarto muuqaalka John wuxuu ahaa nin jecel dabeecadda iyo tamashlaha barafka isagoo kaligiis ah ayuu u safray duurka Alaska isagoo ku kalsoon khibradiisa laakiin waxa uusan filaynin ayaa ku dhacay 3 maalmood kadib waxaa ku habsatay duufaan baraf ah oo aad u xoogan aragtida ayaa noqotay mid eber ah qowgiina wuxuu gaaray heer dhiigiisa oo fadhiisto John wuxuu waayay wadada ku tagi lahaa guriga yaraa ee hooy ka dhigan lahaa halkan wax walba waxay isku bedeleen halkan aad u adag isagoo aan haysan wax dab ah ama cunto ku filan John wuxuu isku duuduubay bustihiisii isagoo rajaynaya in koreelka jidhkiisa uu badbaadiyo laakiin gacmo gashiga xirna ayaa qoyay taas ayaana keentay masiibadii u weyneed ee frostbite firihiisii waxay noqdeen kuwo ciro leh kadibna way adkaadeen ugu dambeyntiina wax dareen ah ayay waayeen firihiisii 2 habeen oo dhex jifay barafka kadib John wuxuu helay xarun gurmed waxaana loola cararay isbitaalka dhakhtarku waxay u sheegeen warkii ugu xumaa 4 farood ee gacantiisa bidix way inay gooyaan si uu u noolaado inkasta oo firihiisii waayay haddana John ma quusan maanta adduunku wuxuu u sheegaa dabeecaddu waa qurux badan tahay laakiin naxariis ma leh haddaba adigu ku dhiiran lahayd inaad kaliga dhex gasho barafka Alaska mise qabowga ayaadan jeclaynba hana ilaawin inaad like saarto iyo subscribe si aad u noqoto qofka u horeeyay ee daawada siraha qarsoon ee caalamka ilaa intaan ku kulmayno muuqaalka xiga sidaas iyo nabadino